السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته هبين ونكسن داوديال meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay gayiga Soomaaliya qodobadan idin hayna waxa qayb ka noqon doona Djibouti ayaa gashay heegankii ugu sareeyay kadib markii dawladda Djibouti ay si cad u diiday in Mareykanku uu ka duqeeyo halkaas Iiraan iyo Xuutiyiinta afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Djibouti ayaa faahfaahin dheeraad ah idin kaga haya sidoo kale qodobada kale aan idin soo gudbin doono waxa qayb ka noqon doona walaac iyo walbahaar xoog leh oo xilligan ka jira dekada magaalada Berbera Xuutiyiinta Yemen oo fariin adag soo diray maxay hadaba Xuutiyiintu ka caroodeen waan kula wadaagi doonaa waxaan kulan ku soo gudbin doonaa dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ka jira deegaanka shidan beesha warsangeli oo halkaasi boqolaal ciidamada ku daabulaysa qodobadaas iyo macluumaadyo kale nagu soo kordha ayaan saaxiibayaal faahfaahin doonaa ee soo dhawaada haday tahay markii kuugu horeysay ku soo biri daraja media waxaad heli doontaa wararka iyo warbixinada xasaasiga ah oo mar walba halkan aan ku daabacno aragtidaada qaybta commentiga ee noogu reeb waxaan ka codsanayaa muuqaalkana inaad like saartid guul iyo gobonimo ayaan u rajeynayaa walaalaha muslimiinta ah sharafta leh qiimaha leh ee Iiraan Djiboutina sidaas lamida dal walba oo muslim ah oo maanta garab istaagay dawladda Iiraan ha guuleysato ayaan leeyahay waxaan sida u leeyahay dawladda Djibouti ayaa si cad u diiday in dalka Djibouti laga duqeeyo Xuutiyiinta Yemen ama laga duqeeyo Iiraan ama laga duqeeyo maraakiibta Iiraan ay leedahay ee aagaas isticmaasha afayeenka u hadlay ama afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda dalka Djibouti ayaa sheegay in Ismaaciil Cumar Geelle madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti uu si cad u diiday in uu cambaareeyo dilkii hogaamiyaha Iiraan Ayatollah Ali Khamenei inuu cambaareeyo duulaanka Israa'iil iyo Mareykanku ay ku qaadeen bahalkii Iiraan inuu Ayatollah Ali Khamenei in la dilay horta qofka cambaareynaya qof damiir lama ahan Ismaaciil Cumar Geelle uu iska diiday sidaas lamida saldhigyo ayuu Mareykanku ku leeyahay Djibouti taas waan ognahay Djibouti baa kule Faransiiska kule Ingiriiska kule Jabaana kule Jarmalka kule Turkiguna uu ka dhisanayaa balina horta wax yar ila fahantaan rabaa saldhigyadaasi marka Yemen baa lagaga duuli karaa Lubnaan baa lagaga duuli karaa Soomaaliya lagaga soo duuli karaa Iiraan baa lagaga duuli karaa Ismaaciil Cumar Geelle wuu diiday in Djibouti lagaga duulo dalalka islaamka ah wuxuu yiri Mareykanku hadii uu rabo in saldhigan uu sii dhisnaado yuusan dalalka islaamka kaga duulin gaar ahaan Iiraan Ismaaciil Cumar Geelle anigu sidaan maleynaya ma baaha wallahi waa nin xoog iyo xinin yala si Soomaaliland oo kale oo Soomaaliland oo dhex fadhido oo kale Ismaaciil Cumar Geelle ma Ismaaciil Cumar Geelle wuu isxajiyay wuu is adkeeyay wuxuu yiri maya hadaa rabtaan inaad halkiina joogtaan Yemen baana lagaga duuleen waxaana lagaga duuleen Iiraan dal kale oo islaamana lagaga duuleen Masar baana lagaga duuleen Israa'iil baana saldhigaas isticmaaleen wuu diiday Ismaaciil Cumar Geelle warbaahinta gudaha marka Djibouti iyo wakaaladaha ugu afka dheer reer galbeedka ayaa waxay hadda baahinayaan macluumaadyo ku saabsan inay eedeeyaan Ismaaciil Cumar Geelle oo ay dhahaan Mareykanku saldhig u diiday Israa'iil buu saldhig u diiday war Mareykanka iyo Israa'iil naclatullaahi calayh hadda xogaha macluumaadka iyo wararka la helaya waxay tilmaamayaan in 48 saac ee la soo dhaafay si weyn loo dareemay dhaqdhaqaaqyada ciidan ee ka jira Yemen waxay leedahay Somaliland waan duqeynaynaa sababtoo ah Somaliland waxay si cad u taageertay dilkii Ayatollah Ali Khamenei war anaga ayaa aragnay bal Somaliland waxaas tabarteeda ma ahe maxaa u geeyay fiiri waxa ku filan Somaliland laba diyaaradood wax ku isqarxiya iyo laba gantaal oo balaastig ah bas ku filan marka in aad sameeysan wax dadka Soomaaliyeed ba ka xanaaqay wax laga xanaaqo way tahay dal dhan oo muslim ah oo gaaladii iyo yuhuudi ay ku duuleen oo Ayatollah Ali Khamenei la dilay oo hogaankii sare Iiraan la laayay oo dalkoodii la duqeynayo oo ilaa hadda dulmi lagu hayo inaad taageertid sharaf dhacday kugu tahay marka dad badan ayaa waxay leeyihiin Ayatollah Ali Khamenei laftirkiisu waxay ahayd baa la leeyahay in uu bal xogaa xiriyo oo dalka iskaga baxo sabab dalka uga baxay ninka haduu dalka ka baxo in laga guuleystay inuu dalkiisa ku taagnaado
boqolkiiba boqol aan waa ku taageeraya marka jabuuti ismaaciil cumar geelle go'aankaasuu qaatay waa go'aan gobonnimo leh faransiiska oo dabcan saaxiibo dhowla ah ismaaciil cumar geellena waxay sheegeen in wax xoog la yidhaahdo aysan jirin oo dabcan aan la yeeli doonin la aqbali doonin in wax aysan jabuuti raalli ka ahayn laga sameeyo gudaha jabuuti waana anigu ficil aan ku taageero oo aan leeyahay boqolkiiba boqol waa ficil muhiim ah oo soo degdegay xilligii loo baahnaana yimid ninka ragga garab waxaa looga baxdaa xilliguu garabkaaga soo baxdo war ninka ragga haddaad wax tari karin dhib ha u geysan adigu tubaraac yaadan noqon qof loogu tabaraaco oo meeshii loogu soo gambado adigu ha noqonin waxaa noqotaa qof waxaasoo dhan intuu meel iska dhigay arrinta dhexdhexaad ka noqda marka xaaladdu waa sidaas waxaan fiirinayaa marka dekedda magaalada berbera hadda waxaa la joojiyey inay habeenkii shaqayso macluumaadka wararka iyo faahfaahinada aan helaya waxay tilmaamayaan in xaalad cabsi ah ay ka jirto dekedda weyn ee magaalada berbera ee somalilan xuutiyiinta yaman waxa ay leeyihiin waxaan duqaynaynaa oo aan beegsanaynaa saldhigyada iyo goobaha ay joogaan ciidanka somalilan sababto ah somalilan waxay leedahay saldhig baan waxaan siinaynaa nimanka la yidhaahdo somalilan nimankan waxaan leeyahay israa'iil somalilanna waxay leedahay israa'iil baan saldhig ka siinaynaa maxay toy berbera haddaba aduu haddii aad saldhig siisid sidee ku badbaadaysaa marka ilan caqligu inuu shaqeeyaa la rabaaye sidee ku badbaadaysaa bay hadda xaaladdu leedahay wararkay macluumaadka aan helayno waxay intaa ku darayaan in 48 saace lasoo dhaafay lagu wargeliyey shaqaalaha israa'iiliyiinta ah ee berbera ku sugan inay markaasi ka baxaan sidaas si lamida feejignaan dheeraada ay galaan xaaladdu haddii isbedesho si ay mar walba diyaar u noqdaan inay yacni kaga hortagaan dagaal iyo istifaacid saraakiil aan la hadlay oo ka tirsan ciidanka somalilan waxay tilmaameen in hadda aysan jirin wax weyn oo la xiriira in dekedda magaalada berbera la xiray yacni waxaan saan dareemayo waxbay qarinayaan oo ku saabsan xaaladaha halkaasi ka jira 24kii bishii hore sidaas oo kale warar iyo macluumaad soo baxay waxay tilmaameen in ay jirtay aragti la xiriirta in ciidanka israa'iil aana hadda lagu soo dedejin in ay degaan dekedda magaalada berbera taa beddelkeedana bal dib loo dhigo ilaa inta xaaladda laga xaqiijinayo laba sargaal oo ka tirsan ciidanka beesha reer sheekh isxaaq waxay tilmaameen in ay la yaaban yihiin sida ciidanka maamulka xuutiyiintu ay hadda rabaanba inay u duqeeyaan dekedda magaalada berbera haddii iiraan aad cadow ku tilmaamteen ayatullahi cali qumaniyina cadow aad ku tilmaamteen anigu waxaan sheega garan maayo afkii baa juuq gabay ma maqli jirtay afkii baa juuq gabay oo waxaan sheega garan maayo anigu somalilan ictiraafkiiba si kale u fahmeeno anigu waan aamusay ayatullahi cali qumaniyi waxay ahayd xataa inay waxaan ka aamusaan wallahi saasaa u qurux badneed inay waxaan ka aamusaan oo ay shib ka dhahaan oo ay dusha ka daawadaan saasaa u qurux badneed dowladda soomaaliya hadda doorkii ciyaaraysa oo kale inay ciyaaraan oo ah inay ka aamusaan yacni yuhuuddu meesha ay taageerto hadda dalalka carbeed xataa duulaanka lagu soo qaaday oo meelahooda la duqaynayo iyo xataa wadamada baxrayn iyo sacuudi carabiya iyo dalalkan kale ee bariga dhexe ee carabta ah oo qadar ay ku jirto shib bay ka dheheen arrinta iyagoo la duqaynayo bay leeyihiin iiraan annagu kuma jirno iiraan in la weeraro ma taageerayno sababto ah cawaaqibka ka dhalanay igu somalilan inay ficilka ku dhaqaaqdo dabcan waa wax aad looga xumaaya dad badanna waxay leeyihiin waa ficil laga gaabsan karay oo ma laga aamusi karay oo ay ahayd baa la leeyahay in xaajadan laga aamuso waa yahay guul iyo gobonnimo baan u rajaynayaa walaalaha iiraan meel kasta oo ay joogaan hadduu nin dhintay nin kale meesha imaanaya waxaanse rajaynaynaa in guusha ay u dagaalamayaan walaalaha iiraan ay gaaraan insha allah biidni illaahi kariim maalin maalmaha ka mida guushay u dagaalamayaan walaalaha iiraan inay gaaraan baan u rajaynaynaa haddii allah awooda loogu raali ka noqdo
haddii taa markii kugu horeysay saaxiib nagu soo biir oo subscribe dheh Daraja Media. inta badan halkan waxaan ku daabacnaa wararka iyo warbixinada xasaasiga ah oo ka qurson aragtidaada qaybta commentiga nagu reeb sida u aragtid in Somaliland xilligan ay taageerto Iran ku saxan tahay mise ku qaldan tahay bal fikirkaaga inoo reeb waa maasintii saaxiib soo dhawaada